ganacsade caan ka ah dalka Ingiriiska ayaa bishii la soo dhaafay iyo sidoo kaleeta isbuucan waxa uu qabsaday baraha bulshada iyo dhammaan warbaahinta reer galbeedka kadib markii si la yaab leh uu uga aarsaday bangi 20 sano ka hor u diiday in uu siiyo deyn uu ku maalgashto fikrad markaasi isaga uu la yimid Adam Derin oo hadda jira 39 waxa uu ahaa mid aanan shilin haysanin markii uu tagayay bangi ku yaala dalka Ingiriiska isagoo ka codsaday 10,000 oo giniga sterlinka ah taasi oo uu ku bilaaban rabay ganacsi isaga markaasi uu la yimid oo uu u fahmayay in ay wax soo saar leedahay ninkan ku dhashay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska ayaa sanadii 2002 waxa uu u tagay bangigaasi isagoo ka codsaday in lacagta la siiyo si uu ugu bilowdo ganacsi bangigan oo magaciisa la yiraahdo Royal Bank of Scotland xaruntiisii ku taalay magaalada Amsterdam ayaa uu u tagay ninkaasi balse waxa uu kala kulmay waji gabax kadib markii ninkii maareeyaha ahaa ee joogay xaruntaasi uu u sheegay in uusan awood u lahayn inuu lacagtaasi iska bixiyo sidoo kalena uusan khibrad u lahayn lacagtoodana aysan ku aamini karin isaga Adam Derin ayaa markaasi kadib waxa uu go'aansaday in uu si tartiib ah ganacsigiisa u bilowdo isagoo xafiis ka furtay mid kamid ah xaafadihii uu ku noolaa halkaasi oo uu muddo dhex fadhiyay xafiiska kaligiis isagoo aanan wax macaamiil haysanin sidoo kale mar uu la hadlayay warbaahinta dalka Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay xitaa ijaarka guriga uu iska bixinaya inay ku ahayd dhibaato xafiiskana sidaas oo kale ayuu sheegay in wax kursi ah ama miis ah toona aysan u oolin oo uu muddo 2 bilood ah iska dhex fadhiyay sanadii 2014 ayaa nasiibka inta uu soo raadsaday waxa uu hal mar tuuray furkii faqriga isagoo uu ganacsigii u bilaabay in uu kor u kaco ilaa heer markii dambe uu gaaro ganacsigiisa ilaa 5 milyan oo ah giniga sterlinka dalka Ingiriiska kadibna waxa uu gatay mid kamid ah shirkadihii ka shaqeynayay magaalada Manchester ee ahayd mid lacagaha amaahisa dadka ku nool magaaladaasi 20 sano kadib ayaa ninkii ganacsadaha ahaa waxa uu dib ugu laabtay bangigii RBS isagoo gurigii ay ku jireen iibsaday warbaahinta ayaa waxa ay soo sheegtay in gurigaasi uu ku iibsaday ganacsadahaasi 450,000 oo giniga sterlinka ah bangigiina lagu qasbay inuu iskaga guuro gurigii isagoo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu yiri habeeno badan oo aan dhafray iyo maskaxdayda oo aan shiilay kadib waxaan ku guuleystay mid kamid ah riyooyinkaygii ee ahaa in mar aan arko aniga oo taajir ah maantana waxa aan haystaa hanti inta ugu filan waliba waxa aan iibsaday mid kamid ah goobihii inta aan la tagay riyooyinkayga layla soo fiijiyay waxa aan maanta ku rajaweynahay meeshan email ka sii dheer in aan gaari doono Adam oo ku dhashay magaalada Manchester una dhashay qoys aad u tabar yara ayaa waalidkiisa waxa ay kala tageen isagoo da'da 10 sano jira markaasi kadibna hooyadii waa ay waday waxa ay u geysay awowgii oo uu la noolaa ilaa muddo halkaasi ayaa waxa uu ka bilaabay waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo dhexe kadib Adams waxa uu u gudbay dugsiga sare isagoo muddo ku jiray dugsigaasi sare balse ugu dambeyn laga soo fiijiyay halkaasi ayuuna ugu haray waxbarashadiisii da'da markuu ahaa 14 ayaa waxa uu yiri waxa aan iska daayay dhammaan waxbarashadii waxaana go'aansaday in aan xaafadda iska joogo muddo kadib da'diisu marka ay soo gaartay 16 ayaa waxa uu go'aansaday in uu qorto ciidamada royalka ee dalkaasi Ingiriiska waxa uuna markaas ku hami weynaa in noloshiisa wax una iska bedeli doonaan laakiin sanad gudaheeda ayaa isla shaqadii laga soo fiijiyay xaafadii ayuuna ku soo laabtay ayadoo loo sababeeyay in uu bartay daroogo taasi oo shaqadiisa ka dhigtay mid uu gudan waayay waxa uu yiri da'da markii aan jiray 19 waxaan isku dayay wax walba oo aan markaasi qaban karay laakiin waxa uu ekaa adduunka mid iga soo horjeedo oo aanan waliba i caawinaynin sidoo kale dhammaan cid walba oo aan weydiistay garab waxa ay ahaayeen kuwa iga soo horjeedo oo aanan ii ogoleen wax fursad ah markaasi inay siiyaan aniguna nolosha waa aan soo nacay waxa aan go'aansaday dhowr jeer in aan isdilo kadib waxa aan go'aansaday bal in aan tijaabiyo mar kale nasiibkayga oo aan anigu ganacsi samaysto
waxa uu yiri waxaan shaqo ka bilaabay mid ka mid ah xarumaha adeegga deymaha bixiyo aniga oo noqday mid ka mid ah suuqgeeyayaasha ka shaqeeya xaruntaasi markii aan muddo ka shaqaynayay ayaa waxa aan ka codsaday ayuu yiri ninkii meesha iska lahaa in mishaarka la igu daro laakiin mishaar la igu daray iska badaaye shaqadii ayaaba layga soo fiijiyey aniga oo yaaban oo waxaan sameeyay garan la ayaa waxaan la kulmay mid ka mid ah saaxiibadayda hore waxa uuna ii sheegay in anigu aan dadaalo lana imaado fikir aniga aan leeyahay maalgelinna aan weydiisto mid ka mid ah bangiyada dalka Ingiriiska oo xilligaasi deymaha ay fududayd sida lagu qaato fikirkaasi ayaa waxa uu noqday mid iga dhaadhacay waxaana la imid fikir ah aniga inaan ganacsi abuurto waxa aan u tagay ayuu yiri bangiga RBS waxaana ka codsaday in lay amaahiyo lacag 10,000 oo ganiga sterlinka ah laakiin waxa uu yiri ninkii maareeyaha ahaa ee goobtaasi joogay ayaaba albaabka iga soo xirtay oo ii diiday in uu isiiyo lacagtii amaahda ahayd ee aan ka codsaday isagoo marmarsiyo uga dhigayay in da'daydu ay aad u yar tahay sidoo kalena aanan khibrad u lahayn ganacsi lacagtoodana ay halis geli karto waxa uu yiri waa aan ka soo tagay waxaana iska go'aansaday in aan dhammaan riyooyinkayga iska dhigo laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan isiri ayuu yiri bal isku tijaabi in aad adigu xafiis furato aanan waxba oolin waxa uu yiri muddo 6 bilood ah ayaan xafiiskaasi fadhiyay wax ii imaanayayna ma aynan jirin ugu dambeyn maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila kulmay mid ka mid ah saaxiibaday waxa uuna ii sheegay in uu isaga iga caawin doono in uu dad igu soo xiro in yar ayay dadkii iigu yimaadeen ilaa markii dambe heer aan gaaray dad fara badan in ay shirkadayda maalinkiiba casuunto ganacsadahan Adams oo da'da 14 markay ahayd iskoolkiisii iskaga cararay ayaa maanta waxa uu hanti ahaan leeyahay lacag gaaraysa 20 milyan oo giniga sterlinka dalka Ingiriiska ah taasi oo ka dhigtay mid ka mid ah ganacsadayaasha horumarka baaxadda leh sameeyay muddo gaaban gudahooda Adam oo wax laga weydiiyay waxa uu ku sameyn doono bangiga uu iibsaday ayaa waxa uu yiri waxa aan u bedelayaa guryo la dago iyo sidoo kaleete goob dadka lagu amaahiyo lacagaha ay ku samaysan karaan ganacsiga si ay noloshooda u sii horumariyaan Adam maanta waxa uu leeyahay 3 caruur ah iyo xaas waxa uuna ka mid yahay dadka lagu aqoonta badan yahay magaalada Manchester sidoo kalena waa mid ka mid ah ganacsadayaasha maalgashta dhulka iyo shirkadaha amaahinta daawadayaal inta waxaynu ku soo koobaynaa taariikhdii koobneyd ee Adam Deyarin tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waanigoo inkaga tagay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh